sanadlaha ah ee jaaliyada Somaliland ee dalka Jarmalka oo sanadkiiba hal mar lagu qabto dalkan madashuna waxay ahayd mid ay ka soo xaadireen badiba haldoorka bulshada reer Somaliland iyo madax ka socotay laamaha xisbiyada siyaasadda ee Somaliland dalkan Jarmalka ku leeyihiin munaasabada ay ahayd mid ay sidoo kale xilka kula kala wareegayeen gudoomiyaha hore ee jaaliyada Somaliland ee dalka Jarmalka Mustafa Cabdiraxmaan Muumin iyo gudoomiyaha cusub ee loo doortay jaaliyada Somaliland Axmed Saalax Cabdi halka gudoomiye ku xigeen guudna loo doortay Cabdinaasir Ciise Aadan gudoomiyaha qabanqaabada shirweynaha ahna xogayaha guud ee jaaliyada Somaliland ee dalka Jarmalka Cabdiraxmaan Maxamed Maryacase ayaa furitaankii xafladda faahfaahin ka bixiyay walaalayaal mudane Axmed Saalax Cabdi oo gudoomiyaha cusub noqon doona iyo Cabdinaasir Ciise oo noqon doona gudoomiyaha cusub intiina halkan fadhida maanta iskugu timid dhalinyarta haween kale waxay idin nasiib u yeelateen inaad markhaati ka noqotaan maanta inaad aragtaan jaaliyad Somaliland ay leedahay oo loo midaysan walaalayaal maanta waxaynu halkan aynu ka dhacaysa taariikhdaasi oo ah in gobolka Awdal uu maanta uu xilka wareejinayo xilkana ay la wareegayaan سنة يصاب Aamina Xuseen Soofi oo ku hadlaysay afka haweenka Somaliland ayaa u mahad naqday dadkii ka soo shaqeeyay qabsoomida shirkan iyo sidoo kale madaxda jaaliyada. Dhammaantood salaamaya. Iskuma wanaagsanin maslax la istaagay iyo mikrofoontoona iskuma wanaagsanin caawa iga hora. laakiin waan barashaan u malaynayaa marka aad iyo aad baan ugu hambalyeeyaa jaaliyada hadaadii iyo gudoomiyaha cusub iyo gudoomiyaha kale ee wareejinaya xilka dhammaan dhalinyaradii aad iyo aad baan ugu salaamayaa gudoomiyaha xilka wareejinayay Mustafa Cabdiraxmaan Muumin ayaa madasha ka jeediyay khudbadu ku soo koobay waxqabadkii jaaliyada iyo xiriirada ay sameeyeen intii xilka hayay halka hoggaanka cusub ee loo doortay jaaliyada guud ee Somaliland ay ka codsadeen bulshada reer Somaliland ee dalka Jarmalka inay la shaqeeyaan muddada ay xilka hayaan tadaaran u bandhigaya hadda wixii ka dambaysa gudoomiyaha iga wareegaya xilka waxaan leeyahay adiga maanta bulshadu diyaar bay ku tahay way ku soo jeedaa gobolka ka soo jeeda waa gobol Somalilandnimadu ay ka dhab tahay waa gobol ku soo caalamaalay iskitaraasi waa gobol ku mataqaanaa sultan aqoon daahir yaala ka tegay wuxuu dal midaysan iyo dad midaysan baa kaga tegay maanta shalay keligii baan maanta waxaan kaaga tegayaa jaaliyadaas oo isku duuban intaa kadib waxaa sharaf iyo qadarin laga mudan inaanu xasuusanno dhalintii usoo jeedo waqtigeedana gelisay noona fogeysay inaanu halkan isugu nimaadno wuxuu siiyey ninkana dardaarankii daahirayaala kaahilo wuxuu yidhi dal midaysan iyo dad midaysan baan maanta kaaga tegaya horta waxaan ku yidhi aniguna Mustafa waa ballan qaadaynaa insha Allah haddii la yidhaahdo waxaanuna saas leeg anaguna sii gudbin doonaa wixii rayaal sameeyay baana samayn doonaa oo ahay madaxweynihii horreeyay doorasho sameeya ana waxaan noqon doonaa gudoomiyihii horreeyay doorasho sameeya insha Allah qofka xilka laga wareego sida halka trooyinkii laga soo jeediyay ma dhici doonto in xilka mar dambe la saga wareejiyo qaababkii hore jaaliyadu soo jiri jireen waxaan samayn doonaa insha Allah sida xeerka ku qoran xilkan waxaan hayn doonaa haddii la yiraahdo muddo 2 sano muddada 2 sano insha Allah waxaan doonaynaa inaad doorashadaanu qaban doono ka hor baan shaacin doonaa iyada nidaamkeeda inaad cidii inaad nagala soo qayb gashaan nagalana shaqaysan qaabka ugu dhacay madasha socotay ayaa waxaa sidoo kale xil wareejin loo sameeyay laan hoosaadka gobolka Heesan ee dalka Jarmalka oo gudoomiye loo doortay Cabdicasiis Hargeysaawi gabagabadiina waxaa goobta xilka kula kala wareegay gudoonkii hore ee jaaliyada Somaliland ee dalka Jarmalka iyo hoggaanka cusub ee la doortay gudoomiye hore ee jaaliyada Somaliland Mustafa Cabdiraxmaan Muumin ayaa shahaado sharaf gudoonsiiyay xubno ka mid ah jaaliyada Somaliland ee dalka Jarmalka oo intii xilka hayay sheegay inay ula shaqeeyeen si hagar la'aan jaaliyada guud ee Somaliland ee dalka Jarmalka ayaa sanadkiiba mar qabsatay shirweyne iyadoo muddo xileedka jaaliyaduna uu yahay 2 sano
إذا هذا محاج عبدي ساب تي في فرانكفورت.